إن أي gabadhii jacaylkii qabtay darteed isku disho waa arrin naxdin leh. What up, my best beautiful people? How you guys doing? Another beautiful day. Yes, it is good to be back, my beautiful people. Adban idin salaam adduunka meel baa ka joogtaan. You guys are the best. Hadda maanta waxaan idin hayaa my beautiful people qiso dhab oo dhacday oo hees laga sameeyay wiliga qof aad jeclaateen ma isku kindiiday. Maybe Soomaalidu waxay u fikirtaa in la dhaho ree hebel waay ama danyar waay, laakiin waxaysan garanaynin labada qof dareenka ka dhaxeeyo. Maxaa dhacay reerkii gabadhooda diiday in ay gabadhii jacaylkii qabtay darteed isku disho waa arrin naxdin leh. qofka ay ku dhacdayna ayaa joogo ka hadli doona meesha. So marka my beautiful people hadal ayaan idinkugu daalinayna bal adiga indhihiina ku daawado. Before intaan u guda galin videoga, don't forget to subscribe right here and don't forget to follow all my social media, my beautiful people, and I hope you guys ready. Lego qso aniga khaasi ah oo ay qabsatay bay ahayd anigu ooridii u horeysay in guursaday ayaa ma garanaysaa dhexdayada dad aad u ah bal isu kaaydiiday dhalinyarana waan ahayn. markii la isu kaaydiiday waa ka bacdi waxay sameysay way istisho way dhimatay. wayba dhimatay xanuun waaye laga yaabay waalidiinta qaar fikradii qarni inay haystaan laakiin aysan dareemi karin labada qof galgacaylka ka dhaxeeya iyo generationka xaaladda siday tahay. bal markaad dhimataan Soomaaliyeed qabriga gashaan su'aasha la isweydiinayo ree hebel maxaa u guursatay miyaa lagu weydiinayaa? waxaan ugu dan leeyahay dad baa ku jirta isla weyni umada yeeso waa dareemaya xanuunko asa bini aadanimaan u dareemaya umada badan baa jiro oo marka ay timaado xagga cunsuriyada labada qof ay soo doonato ama wiilkaas ree hebel waay gabadhaas ree hebel waay. marka ma jecli inaa arrimahan u sii guda galo, waana arrin jirto oo xanuun badan Soomaalidana ku dhaqanto. waxaan isku dayayaa dood dhalinyaro kaliya ah in aan ka soo diyaariyo bal dhalinyarta hadda generationkan fikirkooda ma ku jirtaa arrimihii cunsurinimada iyo isnaciibkii dadkii walaalaha ahay ee Soomaaliyeed oo isku diinta isku dhaqanka isku afka ahay mise waxaas baweyloobeenoo say walaashood ama walaalkeed isku fahmaan isku guursadaan. dood noocaas aan rabaa inaan soo diyaariyo hadduu Ilaahay yiraahdo oo arrintan jirto. marka ma aqaani sheekadan waxay ku saabsantaa wax la isugu diiday, laakiin saan qiyaasahay Soomaalida waxay isugu diidaan kaliya marka ay timaado guurka. kow wax laga bilaabo wiilka keenta waa kee ama gabadha keenta waa tee laga bilaabay. waa run intii daawanaysan 100% waa xaalad jirto. marka su'aalahaas qaabka lagu soo afjar lahay ilan maadaama la yahay isku diin isku dhaqan isku af la yahay sidee ummadda isku dhaxgali kartaa cunsurnimada lagu baabi'in karaa. waan hadalka baan idinkugu sii dheereeyay ma jeclay inaan sii guda galo arrintaana ma ogeysay noqon doonto bal aan sii guda galna heesto. Let's go. jacaylkii dartii way dhimatay marka labadiina waxaad tiraahdeen sidii lamaanahaas isjeclaa isku waayeen ee halbowlaha aan isa siino insha Allah waxaan rajaynayaa wax idin dhex galaba inaan la arkin. jacayl quruxdiisa amaane qorsheeya markaan dhabu qeexo qiimaha nolosheena waxaynu ku qaadanay kalsooni quwaysan damiiru qushuucay ayoodkii laydha qabowga indhahayga xarada qalaclaysa wadnaha qodobkiisa ubaxa ka qandooda cabdoobi la qaybso. midaan la yaabaa fanaaniinta especially Soomaalida ama kuwa hadda fanka soo galay total horta mid ay ka sameeyeen waxa waaye hees macna xambaarsan ama galgacayl xambaarsan ama muruga xambaarsan. hees walba waxay leedahay dareenkeeda leedahay
hadda for example midaan oo kaleeto waa hees qisar dhaba dhacday oo xanuun badan qofka marka uu fanaya dareelihi no you don't need to laugh maahan inuu qofkii fanaanka ah oo qoslo at least qofkan abwaanka markuu heestu ku dhiibto waa in aad booskiisii madashaa dhibaatada ku dhacday booskiisa aa u gashaa oo dareen la eg la muujisaa qofkii abwaanka soo dareemi lahaa aad muujisaa oo tartiib sii degan laakiin haddii qosol lagu daro hees oo murugo leh no miskeenaysa mana ahan xumaati gabadhan maasha allah waa aad baa ugu helaa heesaheedo gabar talented waay bal aan usii gudagalna my beautiful people jacayl quruxdiisa ammaane qorshee markaan dhabu qeexo qiimaha nolosheenna waxaynu ku qaadanay kalsooni quwaysan damiiru qushuucay ayodkiyo laydha qabowga indhahayga xarada qalaclaysa wadnaha qodobkiisa ubaxa ka qandooda cabdoobi la qaybso quwadda dhiigayga qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qadisan ka shuba qumanaylinay qumane halbowlaha qaada siduu qalbigaygu yahay qalbigaaga ayaa labadeenu mar wada qoslaaye wadhaya naftaho cabduu wada qaado quwadda dhiigayga qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qadisan ka shuba qumanaylinay qumane halbowlaha qaada wow si fiican ani miraha uma fahmin laakiin what I feel sheeko walba bilowgeeda hadday leedahay qiso dhammaadkeeda ma xumaato marka aniga heesta miraha si fiican umaanan fahmin bal I really like it waan dareemayaa in ay tahay emotional especially yarka qaadaya heestu he's better than gabadha aad buu kaga fiican yahay marka ay timaado xagga actingka soo ula soconayo xagga marka ay timaado dareenka la dareemayo heestu macnaheedu gabadha xogaa waxa mudaa iyo dadka qaar meesha fadhiya gabadha wareysanaysa in ay out of service oo nadwooga dhanba ka maqanyo meesha ay ka maqan qisada sheekada dhanba ku dhex jirinbo ma fahanta kor socoto way other than it's perfect production kan videoga I really like it wow too much color ma ahan aad baan uga helay way wax u duubaan ma sha Allah wali maanan arkin markii ugu horeyso waay laakiin aad buu u qurux badan yahay videogooda soo waa sii soconaynaa siduu qalbigaygu yahay qalbigaaga ayaa labadeenu mar wada qoslaaye wadhaya naftaho cabduu wada qaado taariikh qoda dheer leh ayaaba qorto qalbigii dirgaxee sawirkii qadrayaalay calafkii kala qaaday ayaa labadeena qoraal isku raacshay siday qandhacaashaq qudhayda u saaqday qiral maragooga ayaaba qoro qaysiya laylu jacayl kala qaade taariikh qoda dheer leh
ayaaba qorto qalbigii dirgaxee sawirkii qadrayaalay calafkii kala qaaday ayaa labadeena qoraal isku raacshay abwaanka ama ninka ee qisada ku dhacda hadii aad fiirsanaysaan miskiinka waa hiif waa dareemaya waliba qosolku qoslo waa iska qosol gariir waxa la dhaho laakiin waxa la yahay my brother samri man Allah ka sii xaaskaaga wax walbana qadar alle ku dhacaan ilaa uu naxariisto so my beautiful people halahaasan ku sii joojinayna ani ahaanteeda heesta aad baan ugu helay laakiin marka ay timaado fanaaniinta Soomaaliyeed heesaha loo dhiibo dareeman kale kuma fiicno ama kuma qurux badno actingka walow ay jiraan kuwa qaar ay ku fiican laakiin badana markaan arkay hees murugale waxa arkaysa fanaankii oo iska qoslaya iska faraxsan anyway guys aad baan horta uga helay heestan qaabka ay u sameysteen fadhiga ay beerta tageen supernatural marba hadii ay u gooyeen magaalada iyo qarashkeeda iyo decorationka iyo cabitaanka la soo dhigay I really like the way it is aad baan uga helay abwaankana waxa leeyahay my brother afi masaawax way yartaa walow abwaaninta qaar dareemankooda way soo muujiyaan xaaladaha ku dhacay personal ugu dhaco aad baan kaaga mahadcelinaa tan waxa laga yaabaa dad badan inay inspiration u yihiin xaaladda waxaana la hadlayaa Soomaalida wili ka dhadhacsan fikirka reebel iyo qofkaas saas waaye gabadheena ma la sii wiilkeena ma doonto adeerayaal adduunku horumar maalinta aan qarinay laguma weydiinayo reebel gabadheeda ama wiilkooda maxaa u guursatay ee qof walba camalkiisa garba u saaran marka waxa qurux badan in qof walba fikiro aad baan u maasantii my beautiful people see you the next episode. Wow.